بسم الله وكفى سلام الله عليكم إخيار ميل والبود الدنيا كجوكتان كسو دوادا ورباهنتي نيكو بهودي ساوثن ميديا كوبريشن أمرو البادكيشان ورك حقيقوين كاه سياسة إسديدن إيكو إساقل إسر صبايل يجيس كأفريكا يمد عالم كبا وردك دقا إيان ميشان إذن كسو قدبين دون أو كساب سيسان مهد صلاة ساعدان أن إذن لهد لينو waxaa la magacaabay taliyaha sirdoonka iyo nabad sugidda qaranka federaalka Soomaaliyeed waxaana loo magacaabay Mahad Salaad oo horaan jagadan ugu fariistay ayaa dib loogu magacaabay shir ay yeesheen golaha wasiirada oo ilaa hadda albaabada uu xiran yahay isla markaana la xadiday qaabka shirkaasi u socdo warkiisa inuu banaanka soo baxaa ayaa lagu magacaabay lama shaacinin wali laakiin warbaahinta ku bahawday koonfurta Soomaaliya afka qalaadna loo yaqaan SMC waxay xaqiijinaysaa sidaan horaanba idinkugu sheegnay in Mahad Salaad markaysee la magacaabay balse warqadda banaanka aan la soo dhigin oo fadhiga golaha wasiirada hadda albaabada u xiran yahay caasimadda dalkeena Muqdisho in lagu magacaabay waan ku dhex jirnaa villa Soomaaliya waana ku dhex jirnaa xafiisyada dawliga ah meel ay nooga baxsadaan male balse laakiin ma arkayse waxaanu doonaynaa inaan dadka u xaqiijino in ay saacadaha soo socda shaacin doonaan amarka Allah wata laakiin sida aan xaqiijinayno waa sidaasi haddaan nahay jaamacadda warbaahinta Southern Media Corporation Mahad Salaad jagadan in lagu soo celiyo isaga ayaa lagu tuugtuugay wuxuu yiri madaxweynaha galmudug ayaan doonayaa in ma arkaysa aan isu soo taago balse laakiin maadaama Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor dhiiqada uu la galay Xasan Sheekh Maxamuud waxa lagu yiri ka joogso ma arkaysa jagadaasi galmudug state Mahad Salaad wuxuu ku dooday beeshaydii haddaan nahay cayr ma arkaysa waxaanu doonaynaa inaan madaxweyne ka noqono galmudug state oo weligeed madaxweyne aynan ka noqon kursigan inaan fuulnaan doonaynaa laakiin maadaama hoobiyaasha looga maarmi kari waayay hoobiyaashan mar walba lagu soo asqeeyo xukuumadda Xasan Sheekh Maxamuud magaalada Muqdisho si adduunka uu u dhaho dhulka waa nabad hoobiyaashaasi ninka soo tuurayayna uu yahay Mahad Salaad waxa lagu yiri walaalow hoobiyaha macnaheedu erga nooga noqo waxaan u baahannahay in ma arkayse macnaheedu jagadan ay qabsatid Mahad Salaad jagadii waa loo dhiibay laakiin su'aal baa isweydiin mudan jagadan hadda Mahad Salaad loo dhiibay waxa ku fadhiyay Sambalolshe oo u dhashay beesha Xawaadle Sambalolshe jagadiisu xagay madhay Sambalolshe jagada waa laga qaaday waxaana ma arkayse loo dhiibayaa jaga kale ilaa hadda 100% xaqiiq ma ahan Sambalolshe wiska ooyay wuxuu yiri anigu Xasanow daraadaadan u dakanoobay ma arkayse balaaya iga gaadhay maantana ma arkayse in banaanka la idhigo wax i qabta ma ahan meesha ugu yaraan waa in meel la igeeyaa waaya Sambalolshe markuu sidaas u cabaaday natiijada hadda waxay noqotay bal Sambalolshe ugu yaraan in jaga loo raadiyo meeshan hadda ninka mursada uu joogo Mustaf Dhuxulow ninkay dhahaan meesha uu joogo ayaa loo wadaa Mustaf Dhuxulow wuxuu joogaa waxaad ogtihiin taliyaha laanta socdaalka iyo jinsiyadaha waa Mustaf Dhuxulow waa nin mursade ah haddaanan khaldanayn ninkaasi meesha uu joogo ayaa ma arkayse macnaheedu la yiri bartaasa lagu geynayaa dib jooji edeb u fariiso marka hadda ninkii ma arkayse Mustaf Dhuxulow ahaa booskiisi ayaa lagu wareejinayaa Mahad Maxamed Salaad waxaan dhihi lahaa ya Sambalolshe marka Mustaf Dhuxulow ka qaad Sambalolshihii laga soo qaaday taliyaha sirdoonka booskiisa la geeyay si kale hadaan u dhigo Mahad Salaad taliyaha sirdoonka iyo nabad sugidda qaranka Soomaaliyeed ayaa hadda loo magacaabay shirka albaabada u xiran yahay villa Soomaaliya golaha wasiirada ay fadhiyaan waayahay Sambalolshihii taliyaha sirdoonka joogayna waxaa la rabaa in la geeyo aeroboorka laga dhigo taliyaha
laanta socdaalka iyo jinsiyadaha xukuumadda federaalka soomaaliyeed booska mustaf dhuxulow hadda uu joogo in laga qaadaa la rabaa ninka mursade ma arkayse macnihii sanbalolshe lagu bedelo bacdama sanbalolshe uu cabaaday waxaan horaan idinkugu sheegnay sidoo kale mahad salaad soo celintiisii waxaa sii dheeraan idin dhahnay in ay jiraan wasiiro la abuuri doono wasaarado la abuuri doono wasaaradahaasi oo shakhsiyaad xasan sheekh maxamuud la shaqeeyey oo xisbiyadan wax ka waayey lagu qancin doono oo xisbigan jaga sare ka waayey lagu qancin doono qaar raxweyn baa soo geli karaaya qaar hawiyaa soo geli karaaya sidaasaan idinla wadaagnay golaha wasiirada oo hadda magacaabay mahad salaad inkastoo aan la soo shaacinin balse ay ku qasban yihiin inay soo shaaciyaan saan hadda kuu sheegaayo waxay abuurayaan 4 wasaaradood ayay hadda abuurayaan ay u fadhiyaan shakhsiyaadka loo magacaabayo 4taasi wasaaradood annagu idinma sheegi karna magacyadooda ilaa hadda kuma aynan guulaysan balse laakiin haddaan nahay jaamacadda SMC waxaan ku mashquulsannahay magacyada wasaaradahaasi yani wasaaradaha magacyadooda waa haynaa laakiin wasiirada meeshaasi fariisan doona oo jagooyinkaasi lagu fariisin doono ayaan ku mashquulsannahay laakiin warbixinta aad baa loo xadiday macnaheedu war meeshaasi laga keenaa waxa weeye waa la weyteeyey kiyaaw ingiriis baa lagu dhuujiyey marka bacdama la dhuujiyey annagu waxaan ku dadaali doonaa bal inaan heli karno ma arkayse magacyada balse magacyada wasaaradahaasaan rabaa inaan kuu sheego kow wasaaradda hadda la abuuraayo waxaa weeye wasaaradda bariga africa wasaaradda bariga africa ayaa lagu soo kordhinayaa wasaaradaha soomaaliya maantay hadday u fadhiyaan golaha wasiirada magacyada wasaaradahaasa ma kuu sheega laakiin shakhsiyaadka lagu fariisinayo weli kuma aynan guulaysan waayahay 2 waxaa la abuurayaa wasaaradda gargaarka markii hore waxaa idiin dhisnaa wasaaradda gargaarka iyo musiibooyinka wax noocaasa marka sidii wasaaradda amniga iyo arrimaha gudaha loo kala qaaday oo kale hal wasaarad oo 2 laga dhigay oo kale ayaa wasaaradda gargaarkana gooni loo abuuraya hadda wasaaradda saddexaad waxaa la abuurayaa wasaaradda dalxiiska waagii hore waxay ahayd wasaaradda dalxiiska iyo duurjoogta iyo bay-ada iyo waxbaa isku xidhnaa wasaaradda dalxiiska waa la abuurayaa hadda wasaaradda afraad ee la abuurayo waxaa weeye wasaaradda dastuurka markii hore wasaaradda dastuurka iyo arrimaha federaalka iyo cadaaladda waxbaa isku xidhnaa marka 4taasi wasaaradood ayaa gooni loo abuuraya oo kugu celin doonaa kow wasaaradda bariga africa wasaarad ayaa loo magacaabaya wasiir waa wasaarad cusub wasaaradda gargaarka iyadana waa wasaarad cusub oo hadda la abuurayo wasaaradda dalxiiska iyadana waa wasaarad cusub oo hadda la abuurayo wasaaradda dastuurka iyadana waa wasaarad cusub oo hadda la abuurayo marka 4tan wasaaradood ayaa hadda ay abuureen marka shakhsiyaadkii ku fadhiisan lahaa ayay magacaabi doonaan baraha bulshada ama meediyaha ama warbaahintana waad ka arki doontaan saacadaha soo socda maamulka allah watay haddaan wax iska bedelin waxaana lagu magacaabay fadhigan hadda golaha wasiirada ay fadhiyaan oo weli aan la shaacinin laakiin aan rabno haddaan nahay jaamacadda SMC inaan horudhacaan idinkugu sheegno mahad salaad ayaa hay-adda nisa loo soo celiyey sababta loo soo celiyeyna waa kuu sheegay qaraxyada naga yaree hubiyaasha inaga yaree ayaa ma arkayse macnihii loo soo celiyey bacdama xasan sheekh maxamuud xaaladda ay ku adkaatay mahad salaad macnihii magacaabistiisii horaanaan u sheegnay in booska sanbalolsha lagu bedeli doono laakiin hadda wuu magacaaban yahay marka fadhigaasi golaha wasiiradana warkaasaan idinka keennay ma arkayse kuwiin madiido tii la oran jiray lafta gareenna waxaa lagu yidhi saaxiib adiga hawiyaa ku matalaya hawiyana waa inuu dhul qabsadaa waa inuu dagaalamaa marka daarood baa lagu duulayaa ciidankeen adigu askar baa lagaa rabaa isagii taliyihii odashub waxa weeye markaan way xaroodeen dad yaka lagu haysto ayay u eg yihiin waxay soo kala gurguraanba
raxaweyn gudahooda iyo hariin ay dhahaan gaarasuunle iyo waraasilaan hubka ka dhigaynaa eelaay naasiye iyo geedafado iyo bohraalaan hubka ka dhigaynaa waxay dhahaanba waxaa lagu yidhi ciidan lagu weeraro daaroodkeena waryaha daalimiin yahay oo marka ugu dambaysana hargeysa iyo burco lagu weeraro raxaweyn waa in lagu daadiyaa baa la yidhi laasacaanood kadibna ma arkayse garowna waa in lagu weeraro raxaweyn burcana waa in lagu weeraro raxaweyney sidaasaa loo soo diray shub iyo lafta gareen oo qol lagu xirtay marka masiirkii meeshaasay dhigeen raxaweyney haddaad diyaar u tihiin adinkay idiin taala anigu marka raxaweyn waa la talin lahaa raxaweyn waxaan kula talin lahaa horta cajuusa tiri ayaydaa ka bilaabaa la yidhi raxaweyney ma arkayse macnihii lafta gareen iyo adeerkiisii idinma gadan karaan way idin gateen laakiin maanta waa soo jeedaan hubka dhigis bay idiin soo wadaan sidii robow oo kale qadiyadaana ka muhiimsan shaksiga anigu waxaan haddaan tala idin siiya waxaan idin dhihi lahaa nimayow buurha kaba isugu taga cambuuladiina faraqa ku shubta shabeellada hoose iyo afgooyana waa ka difaaci kartaan nimankan waxay maanyafuulka usoo dhaafi waayeen macnihii qandaraas bay macnihii ciidankan tirada badan mar walba markay hawiye wax la goosanayaan waxyar macnihii waxbay dhaqaajinayaan haddana markay gorgortanka wux saamigood ay helaan ciidanka gacmay ka qaban jireen man daliil maxaa daliil u ah walla weyn ciidankii isbaarada qaaday ee la dagaalamay markay dhaheen afgooyaan ku dhufanaynaa nuur xayri ayaan dhagaha ku dhufanaynaa waxaa weeye gacmaha la qabtay wiilashan macnihii maayafuulka joogaa markay dhaheen buura kaba iyo baydhabaan isku furaynaa gacmaha la qabtay xudur iyo tiyeeglow iyo waajidaan isku furaynaa iyo baay markay dhaheen gacmaha la qabtay marka lafta gareen iyo adeerkiisu waxay la shaqaysanayeen hawiye fiiri afgooye nuur xayirka jooga iyo isbaarada shanta golaha sare lafta gareen ayaa shaqaalaysiiyey hawiyaha markaad u tagtid waxay ku leeyihiin annagu lafta gareen baan u shaqaynaynaa lafta gareen ayaan u shaqaynaynaa iyagay lacagta dadka uga guraan dekedan qalalan ee magaalada muqdisho afgooye ku taalla oo haddii dhaqaalaha la soo qaado raxaweyn oo dhan lagu xorayn karo waxaa weeye iyaga ayaa koonta ku shubta automatically way kala goostaan marka ciidanka waxay u dhaqaaqi waayeen macnihi inay wax ku xuuxaaxiyaan ay ku cabsigeliyaan kadibna macnihii ay wax ka kala goostaan iyagii hawiye sidaasay macnihii ciidamada u yaalaan laakiin ciidan xarkaha laga furay raxaweyney waxaana daliilka ugu filan raxaweynkan meel walba ku dhammaanayo meel walba ku dhimanayo deegaanadooda oo macnihii yidhi war lafta gareen isagaa hogaamiye noo ah siduu deni u dhawaaqay u yidhi laasacaanood waa in la xoreeyaa 25 hal mar keliya lafta gareen muuna dhaho ma arkayse macnihii raxaweyney dhulkeenna aan xoraysanee barahaasi ku soo xaadira sababta uu noo dhihlaayahay oo ma arkayse adeerkiisana all time wiilasha intuu qaado dhul hawiye loogu dhammeeyo oo isaguna ugu dambayntii 3 sano waxaanan ka shaqaynaya hadda uu afka furtay oo xamar uu nageeyey way iska caddahay marka macnihii dadkii hadda waxay ogaadeen nimankan in ay ciidamada raxaweyn dhulkooda xoraysan lahaa gacmaha la qabtay tusaale magaalada luuq ayaa macallin weyne la weeraray macallin weyne oo hubkii qaranka soomaaliyeed lagu weeraray hal sanduuq oo rasaas ah macnihii iyo lafta gareen inuu dhawaaqo yidhahdo ma ogolaanayno gedo annagaa iska leh ma arkayse dadkeenna in lagu laayo waa qalad tuutaha dowladda in lagu dilo nag waa laga kari waaye war hal mar xataa dheh macnihii macallin weyne oo lagu garaacayo gantaalada isagoo u hadla ma aragta raxaweyn oo macnihii la isugu tagay iyagoo u hadlayo ma aragta haddana masiirkii raxweyn ay ku fadhiyaan jagadii raxweyn ay ku fadhiyaan ilan jagada asluubta waa jagadii digil aw mirifle jagada ma arkayse madaxweynaha mayland waa jagada digil aw mirifle jaga hooyooyinkooda iyo aabooyinkooda ay kala yimaadeen ma ahan oo jaga la wada leeyahay waayo marka waxaan rabaa inaan sheego ciidan wixii digil aw mirifle ah digil aw miriflow si aad u dhaqaaqdaan meesha laga xorayn karo baydhabo meesha laga xorayn karo afgooye halka loo yaqaano buurha kaba waay meeshaasi buurha kaba waxa weeye waa la bahdelay eelaay ma arkayse iyagaa dadnimo isku wada ma ahane waxa weeye lama rabin waana dad wax difaaca oo dagaalama oo ma arkayse la yaqaano haddii hawiye uu soo duulana dhulkaas dhul hadduusan soo marin baydhabo ma qabsan karo 21 markay dhisnayd dowladdii mining dan ah shaati guduud ay ku jireen waxaad garanaysaan in eelaay keligiisi hawiye uu difaacay markii ma arkayse macnihii buurakaba iyo macnihi aysan soo gaarin oo raarka laga celiyey ama
bohosha boondada laga celiyo waad ogtihiin marka saldhig meeshaasi ka dhigta waa istaraatiiji haddii ciidan ah wax ka taqaanaan xamarna lagu difaaci karo afgooya lagu difaaci karo baydhabana lagu xorayn karo ma arkayse macnihii loogana sii gudbi karo waajid iyo tiyeeglow iyo xudur laga difaaci karo ilaa ceel berde lagu difaaci karo luuq iyo baraawe lagu difaaci karo diinsoorna la daris ah doy lagu difaaci karo hawaii lagu difaaci karo ilaa iyo marka iyo ma arkayse shalambood meeshaas iyada ah ilaa iyo buur eyle xuduudda gobolka hiiraan uu la wadaaga gobolka bay waxaa weeye lagu difaaci karay wala weyn meeshaas iyada ah cudud isugu geeya meeshaasi macnihii ciidankan isugu geeya baydhabo waxaan rabaa inaan u sheego 9 kale isku tashada inta aanan laydin eer sheegan oo aan laydin dhihin 9 hariin macnihii ah meesha naga qabsaday macnihii adinku weerar ha qaadina hariinka gudihiisii waxaan rabnaa in ay lafta gareenay adeerkiisa ay xiraan dhakab iyagu inay qofba qofkiisaa qabsada inay xiraan macnihii eedda digil iyo miriflayn inay banaanka iska dhigaan ha waxaan rabaa meeshan in nimanka hubka laga dhigi rabo ee ma arkayse idimoolada qayb ka mid ah oo hoonka ah tusaale hadda cabdille isaaq oo kale waa nin hoon oo dimoole ah taliyaha saldhigga degmada walaweyn waay okay maxaa inta loo keenay madaxtooyada isagoo u dagaalamay dhibaato u maray lafta gareen la shaqeeyey waxaa weeye jufanimaa loo soo eriyey taliya shubbaa wuxuu yidhi ninkan waa in laga saaraa waa halgamaa waa nin abaabul badan nin kastoo abaabul badan oo dhiig aaraaree ku jira lama ogola cabdille isaaq nin geesi ah waay fiiri waxaa lagu soo tuuray walaweyn maxaa loogu soo tuuray mataqaanaa waxaa loogu talagalay inuu meesha ku dhinto oo lagu dilo if you believe or not in la dilaa loo keenay walaweyn cabdille isaaq ma rumaysan tahay mise ma rumaysan ani runtaan kuu sheegaya waxaa loo keenay ninkan maadaama ma arkayse idimoole uu yahay idimooladana kaayey laf ay dhahaan oo taliya shub iyo lafta gareen ay ka dhasheen besaa wax loo ogolyahay waana shaati guduud uu ka dardaarmay allah u naxariistay shaati guduud wuxuu yidhi kaayey xilka laga ilaaliyuu yidhi kaayey wayna gadanayaan hariinna way isku diraayaan digil iyo miriflana way kala goynayaan kaayey hana laga ilaaliyo xiliyaan loo dhiibin shaati guduud dardaarankiisu ah ilaahay ha u naxariistee because nin digil iyo mirifle isku waduu ahaa nin hariin isku waduu ahaa macnihi nin haddii wiilku adeerka u yahay wax xaqdaro wax ku dilo tiirka soo taaguu ahaa shaati guduud ilaahay ha u naxariisto wuxuu yidhaha laga ilaaliyo nimankan because cabdulle isaaq kaayey ma ahan hadda ma fahmaysaa waxaa weeye hala dile ayaa walaweyn loo geeyey haye nakarumba sidoo kale ma arkaysa macnihi kaayey ma ahan waxaa walaweyn loo keenay in meesha lagu dubto iyaga la dilo ninka ay dhahaan waarikow oo isagana hadama ah macnihi abaabulkay ku fiican yihiin dhiig digil iyo mirifla ku jira walaweyn saasaa loogu soo shubay marka qof kasta oo dhiig digil iyo mirifla leh taliya shub iyo wiilkiisi waxaa weeye boqortooyay ka dhigteen meeshan waa in la dilaa ama meel uu ku dhiman laga tuuraa ciidan wadani ah oo aarare isku sheega 10 meel ku ururtaa lama ogola kismaayo laga tuuraa aadan yabaala laga tuuri waxaa laga tuuri ma arkaysa macnihii boqol salkeeda waa la kala firdhinaya hadda ma fahmaysaa marka dadka noocaasi hariimow inaad idinku ka qabataan loo baahan yahay ani waxaan rabaa marka 9 iyo digil aw mirifle mid inaan u sheego maanta waxaan rabaa inaan u sheego nimanyo hariin waxba hawa caynina shub iyo lafta gareen hariinka iyaga inta la qabtay iyaga wallaahi bil say hadda hawiye u geeyeen qadiyada ka dhaba been bay u sheegayeen dareenka shacabka ay ka ganacsanayeen hariin maanta haddii xabad la bilaabo lamber 1 shub iyo lafta gareen kuwa ku bilaabayo waa iyaga marka waxaan rabaa hariinna mid aan leeyahay hariimow macnii wiilkan iyo adeerkiisii oo idinku daray digil iyo mirifle iyo soomaali meel iska saara oo macnihii katiinadeeya oo ka qaada xilka idinka xataa ku fariisto oo dhaha digil iyo mirifle nimankan annagaa qabanay nimayo aan cabaar hogaamino cadaalad aan ku hogaamino gaarsuunlo oo kale loo dhiibo gabaar oo kale loo dhiibo idimoolada qayb ka mid ah xataa kale loo dhiibo digil iyo mirifle ku qancaya waxaan u sheegaa 9 iyo idinkuna 9 iyo digil iyo mirifle waxaan u sheegayaa niman yahow lafta gareen iyo shub hariin ma keensan hariinkii iyagaa dhiban ma arkayse qofkoodii la dilay cadaalad loo diidan yahay sida hadda ma arkayse wiilkii 27 sano jirka ahaa oo ibraahim cabdullaahi geesdiir oo 2 sano ka hor maxkamadda macnihii dil ku xukuntay askarigii dilay 10,000 oo shilin Soomaali ah isbaaro uusan haynin loo dilay war koombadan digirta iga qaado waxba ma haayo ilaa hadda lafta gareen macnihii xukunkaasi uu ku fadhiyo wiilkaasi
ma arkayse xaawo isaaq daa'uud ay dhashay oo la yaqaano oo hooyadiisi aabihiisi ay hariin yihiin oo macnihi waraasile ay yihiin gaarasuunle ay yihiin waad u jeedaan marka waxaan rabaa inaan u sheego war waxba macnihi hariin 9 digil iyo miriflow hariin dartiisii lafta gareen iyo shub hawa caynina walaalaa tihiin yaan la isku keen dirin nimankan sidii tin cajiin ku dhacday oo kale waa in looga qaadaa xukunka waxaan rabaa inaan eelaay u sheego eelaayo hubkaaga qaado diyaar garow waxaad u diyaar garowdaa sidii macnihi lafta gareen iyo adeerkiisa meeshaan looga qaadi lahaa bas dagaal qabiil ha gelina waxaan u sheegayaa 8 iyo 9 digil iyo mirifle dagaal sokeeyo oo qabiil ayay rabaan inay idinkaga tagaan mahad iyo adeerkiisi hadday xukunka iyagu ay joogi waayaan waxay doonayaan in ay dadka isku diraan waxay doonayaan in ma arkayse macnihii kursigan aan looga dambaynin ama inay iyagu xukumaan waa sectarian violences ay reebeen waxaan saas u leeyahay nimankan hariin ma keensan waxaa weeye dowladdii horaa keensatay farmaajo waxaad og tihiin oo aad garanaysaan madaxtooyada maantay niman mareexaan iyo ma arkayse qoyska lafta gareen iyo mahad aan ahayn ma joogo inta kale waxaa weeye 4 qofood oo gaaljeel oo hadama ah iyo 1 qof oo shirmooge ah bes iyo 2 lawaay ah iyagiina waxaa weeye sida ay ku nool yihiin alla og waxaan rabaa marka inaan sheego meesha qadiyad digil iyo mirifle ma taalo digil iyo miriflena lagama ogola wax waagii oo xasan sheekh maxamuud dib loo doortay oo xukunka macnihii uu qabsaday oo ay ka baqeen inuu baydhabo ka qaadayo xukunka kursiga waxaad ogtahay taliyo shub iyo macnihii wiilkiisii intay meel soo fariisteen inay afka furteen oo ay dhaheen digil iyo miriflow shib waati u lahaa digil iyo miriflow annaga caruurteenna waxbarashada iskuulaadka in laga jajabiyaal rabaa ayaan daraa ku dhacday aan difaacano inta waaye waa tii u lahaa ujeedadooda maxay ahayd mataqaanaa markaasi wallaahi oo bilaahi oo tallaahi digil iyo mirifle inay dagaal geliyaan hariina inay dagaal geliyaan kow haddii digil iyo mirifle xasan ay soo raacaan hariin hadda ka horaaba laysugu tegay inay dhahaan hariinkan maanta ay dulminayaan inay xabadda geliyaan bay doonayeen gabaar ay dagaal geliyaan dubdheere ay dagaal geliyaan gaarasuunle ay dagaal geliyaan macnihii hoon ay dagaal geliyaan macnihii dimoorada kale inay dagaal geliyaan sharafta leh in ma arkayse macnihii 6 iyo 7 la hariin dhimbille inay dagaal geliyaan macnihii dagaal 8 iyo 9 inay afka u geliyaan iyaguna turkiya meelahaas ka aadaan okay raxaweyna 8 iyo 9 inay isu dubato iyaguna kor ay ka daawadaan markaasi iyagoo malaayiin ka dhacay daara dhistay shaqaysanaya waxaasay ku shaqaynayaan waxaana hariin looma saarin karo hariinna shaqo kuma leh hariinna shalay ma keensan hariinna macnihii meeshaan kuma haayo nimankan waa niman akaabiriin ah shaati guduud uu ka digay uu yiri nimankan ha laga ilaaliyo mahad iyo qaswadayaal waaye 8 iyo 9 digil iyo mirifle isku baabi'in doonaan nimankan hariin bay kala goynayaan maanta hariin xaguu kala joogaa maanta hariin wuxuu joogaa in la yiraahdo gaarasuunla hubka laga dhigaya in la yiraahdo waraasila hubka laga dhigaya hoonka kala hubka laga dhigaya eelaaya hubka laga dhigaya waxaa hubka laga dhigaya digil aw mirifle inay hawiye ay u soo adeegsadaan sidii rogow oo kale marka waxaan rabaa inaan meeshaan ka sheego oon caddeeyo ma arkayse digil aw miriflow miirka idinku soo noqdo qarnigii 21 baa la joogaa ma arkayse maskaxdiina fura niman yow dagaal sokeeya ka joogsada oo ma arkayse macnii nimankan waxay dhigeen ay abuureen dhigtaarta ay beereen waxaa weeye raxweyn inay isbaabi'iso waay ama kursigan inay iyagu joogaan dadka ay kala haayaan fiiri neef geel baa lagu qalayaa madaxtooyada mahad mar walbo baydhabo uu tago neef geel buu qalayaa neefka waxay ku akhriyaan ma naqaano neefkaasi marka macnihii ay qalaan qayb ka mid ah hilibka fiican qoyskiisuu siiyaa hilibka xunxunna hariinka kaluu siiyaa gaarasuunle iyo waraasile maba la siiyaba hadda ma fahmaysaa marka macnihii dad noocaasi qabyaaladoodii gaadhay waay waa dad ma arkayse macnihii ilma adeertoodii kala qabqabay waay dadka noocaasi dowlad ma noqon karayaan waxaan doonayaa raxaweynay dhegaha fura indhaha fura annaga waxbaan idiin sheegaynaa niman yahow hariinow ma arkayse lafta gareen ee adeerkiisi meeshaan ka qaada xaqna cidna uma siinin in madaxweynaha dowladda Maryland uu lafta gareen noqdo taliyaha asluubta ee ugu sarreeya awood qaybsiga taliyaasha raxaweyn inuu adeerkiis noqdo in wasiirka macnihii madaxtooyada agaasimihii guud in taliya shub wiilkiisa uu noqdo in ma arkayse ciidamada Maryland digil iyo mirifle iyo biimaal inta la halmaala in gabadha taliya shub uu dhalay in ciidamada saadkoodii loo dhiibo
falsafadaasi dheeri weeye wax digil iyo mirifle aqoon uu u lahaa maahan waayahay in kursigii hariin oo ma arkaysa hariin ay lahaayeen haddii wiilkiisii taliyashub uu yahay agaasimaha madaxtooyada haddii taliyashub uu jagadii digil aw mirifle ku fadhiyo yahay taliyihii asluubta haddii wiilkiisi kale macnihii uu yahay iyo wiilkuu sodoga u yahay madaxweynihii dowladda digil aw mirifle ama maryland haddana gabadhiisu ay joogto ciidamada saadka oo dhan iyo mushaarka ay hayso haddana gabadhiisi kale madaxweynihii uu qabo haddana ma arkayse in lafta gareen walaalkiisii kursigii hariin uu ku matali laha xildhibaannimada loo dhiibo weriye cabdicasiis dhagacadda meesha laga qaado hadde ma arkayse waxaasi saami qaybsi ma ahan waxaasi xishood way ka tagtay dalladii ayay seegtay oo dab iyo naar doontay wey sidaasi macnihii ma ahan cadaalad shaati guduud sidaas ma samayn jirin digil aw miriflow shaati guduud waxaa weeye ma arkaysa digil iyo miriflow soo dhex dhigi jiray baasha cadaalad buu samayn jiray maamulku uu qaybin jiray arare hadduu yahay hadduu dowladdii ma arkayse lagu dhisay baydhabo ay ahayd intaba waad ogtihiin marka waxaan rabnaa inaan caddayno oo meeshan aan ka sheegno ma arkayse digil iyo mirifle iyadoon la isku dilin oo dabaadigeenni uu badbaado awalaan dhammaanay ciidankan si usoo dhaqaaqo waxaa loo baahan yahay ciidankan in laga faa'iidaysto dhulka lagu xoreeyo macnihii hoggaan dhaba in loo dhiibo waa in taliyashub iyo wiilkiisii horta ma arkaysa hariin ay dhahaan ma soo degi kartaan hadday soo degaanna ay meel ku xidhaan waa in ay meel ku xidhaan madaxweyne ma ahan maxaa yeelay urur buu galay isagoo madaxweynuhu urur galay qadiyadda digil iyo miriflow gatay waa in meesha laga qaadaa markaas kadibna ciidamada digil aw mirifle buuraha kaba saldhig waa inay ka dhigtaan waa in shabeellada hoose isbaarooyinka yaalla dhabay dhab meesha macnihi looga xoreeya lasoo dhaqaaqaa waa in baydhabo laga difaaca buuraha kaba anuu digil iyo mirifle hadday caqli leeyihin waxbaan u sheegay waxaana leeyahay iska ilaaliya in la isku keen dhufto hadday nimankan meesha banneeyaan qorshooda waxaa weeye digil iyo mirifle xabadna inuusan ka harin waaya ciidankeenaa la yidhi maxaa hadda daaroodna loogu dilaya annaga daarood muxuu noo geystay maxaniya daarood xasan sheekh maxamuud hadduu raaskamboni ku duulay ya ma arkaysa isaga muu ku duulay ilmaadeertiis haddii laga soo katiinadeeyey isaga muu weerar ku qaado maxaa lafta gareen iyo adeerkiisii keena raxaweyn oo aan daarood ku dilno why keena raxaweyn aan dir ku dilno why I don't know ma garanaayo fiiri ayaan dhowey ciidamo ayaan qoraynaa baa la yidhi taliyashub baydhabuu idin yimaaday ciidamada wiilashiinuu soo qorqortay aadan yabaal iyo dhulkaasuu ku shubay markay ciidamadii lasoo weeraray oo xabadda ay socoto qabiil walba dadkiisii marka ay difaacanayaan oo ay u gurmanayaan taleefonkuu idinka dansaday aawa carruurtiinii xaggay ku dhinteen haddii meel lagu dhimanayo tiyeeglow may xoreeyaan baar dheer may xoreeyaan luuq may xoreeyaan diinsoor may xoreeyaan baydhabo iyo diinsoor iskuma furna qasax dheere iyo baydhabo may xoreeyaan berdaale iyo baydhabo may xoreeyaan 20 jirow iyo saydhelow iyo ma arkayse maleel iyo ma arkayse siqle iyo doondolle iyo biyooley may xoreeyaan dhulkeena dadka beeraha laga cashuuraya oo may xoreeyaan afgooyi ee maynoo xoreeyaan ceelasha iyo siinka dheer iyo lambar 4 iyo 4 rukun annagaa leh oo marka iyo macnihii dhulkan bacaadka ilaahay baraaw may xoreeyaan xasan hirkay ninkii baraawa ka dagaalamay ilaahay hadda waa loo diidan jagadhaba in loo dhiibo haddaa baraawa la keenaan u malaynaya ha markaan u qaylinay waa nin hariin ah weliba waxaan u malaynaa hoon inuu yahay hadduusan idimoolo ahayn waa la faquuqay taliyashuba arkila hadda ma fahmaysa war hariimow waa baaba'deen dhimayow digil iyo mirifla waa baaba'deen aniga dhabka hadal baan idiin sheegaya dagaal sokeeya iska ilaali 9 ha isdilin digil aw mirifla ha isdilin tuugadan meesha iska qabta now hadda waxay doonayaan in ma arkaysa macnihii raxaweyn marka ugu horreysa waa la qaramayna ay dhahaan qaramaynta waa midka aad ku jabteen ya waa qaribmi doontaan qaramaynta idin dhiman maxay tahay dowladaa tihiin ciidan baa leedihiin tuutaa leedihiin calan baa leedihiin haddaa lagu qaramaynaa macnaheeda ma taqaana hubka dhigistii aan kuu sheegaayo waay taasaa loo soo dhiibay si hubka la idinkaga dhigo waa la idin qaramaynayaa soof xaadira lafta muxuu ku yidhi taliyashub daraad muxuu idin dhahay taliyashub daraad sheega dee markii labaad markuu ciidankii gab soo siiyey taleefanada dansada markii la laayay haddana mar kaleu baydhabo idiin imaaday wiilal 14 waad soo dhoobteen war ilmaha idinku ma iska dhashaan xisaab male miya ha amarkii la idin siiyey qaata macnii hadal ha soo celinina meeshii la idin diray aada ma dhahay mise ma dhahaynin sidaasaa la rabaa in daarood madaxa la idin geliyo haddaa ma kuu sheega aniga ha haddaa ka bixi kartaan idinka idin taalla nimankan way idin gateen
lafta gareen ma arkayse magaalada muqdishada macnihii nalooga soo duulay uu kuu sheegay annagaa iskale of course laakiin guriga xasan sheekh maxamuud ya oo 17 dabaqa weheliye meel ay dhahan ma jirta xamar weheliye oo aaga waa beri ah 17 dabaq oo xasan hadda uu dhisaayo kan ka soo horjeeda oo ay isfiirinayaan 12 dabaq ee hadda la saarayo lafta gareenaale boos koobaad iyo boos labaad oo isku haystaa meel aan boos koobaad iyo boos labaad ahayna macnihii ma gato mana dhisto haye sidoo kale Maka al Mukarrama boos koobaad iyo boos labaad isaga iyo aadan madoobe guryadu way isfiiriyaan dadka noocaas maad ii sheegaysaa marka qadiyaday macnihii hawiyay la dagaalamayaan salli ala nabi wa rasuulka ku salliya runta u noolaada wariyada been baa la idin sheegay waa la idin gatay macnihii dagaal sokeeyana macnihii la idin soo raray raxweyn marka aqli ha yeelato raxweyn waa inay isku tashataa waxaan ballan ilaahay ku qaadaya lafta gareen iyo adeerkiisii la'aanteed raxweyn inay noolaan doonaan ilaahay idankiisii waxaana ku kalsoonahay raxweyn inaan la qabsan karin ee isdifaaci doonaan anaa ku kalsoon rag baan ogahay ma arkayse macnihii rag ba dalkan rag buu leeyahay ilaahay buu leeyahay rag buu leeyahay ummadan rag baan ku ogahay dumar dhiifoon ayaan ku ogahay naa ka dheer baan ku ogahay oo dhalinaysa sidaasi awgeed cabsi kama qaban raxweyn in la qabsanayo haddii laakiin qabsasho ay noqoto inta kuwan ay joogaan aan la qabsanaaba because ciidanka ay dhamaynayaan ma arkayse daarood bay afka noo gelinayaan dir bay afka noo gelinayaan inta ay nala joogaan baan u dhownahay inaan gumowno laakiin kuwan haddayna dhaafaan ya wallaahi oo bilaahi oo tallaahi digil aw mirifle looma baqaayo waxaan ku kalsoonahay digil iyo miriflaha qarniga 21aad 2025 la joogo soo jeeda annagana aan u noolnahay sirta aan u soo gudbinayno inaan la qabsan karin miskaxdoodu ay xorowday rag iyo dumarba ma arkayse si fudud aan la isugu diri karin ma arkayse laakiin la isku dayi karo anigaa ku kalsoon iska dhaaf waa adeerkay waa abtigay aniga cid iiga dhow male kuwan iska dhaaf adeerkay waa abtigay digil iyo mirifle qabiil inuu isu dilo maanta in la isku diro not easy sidii tuhun iyo toroboro sidaasayna qorsheeyeen marka waxaan rabaa inaan sheego miskax fresh ah trending lagu sameeyo oo digil iyo mirifle waa inay soo baxdaa hariinna waxaan uga fadhinaa lamber 1 mahad iyo adeer wiilkiisa inay meesha ka qabtaan si 9 ay u qanciyaan oo ay dhahaan daalimiinta digil iyo mirifle isku diraayay daalimiinta macnihii digil iyo mirifle dhulkiisii macnihii in la xoreeyo diiday oo ka ganacsanaya dareenka shacabka waa qabanay inay dhahaan bisa looga fadhiya aw malaaq aadan jibriil macnihii xildhibaankii uu qortay maraaqi gaarasuunle intuu macnihii u geeyey lafta gareen ayaa wuxuu yidhi gaarasuunle xildhibaan ay keensatay ma qoraayo hariin soomaan dhiikaro u dhintay hadda ma fahmaysa xaqiiqdan kuu sheegaya waxaan rabaa warka degdega inaan kaa dabageeyo cabdullaahi maxamed cali sambaloolshe waxaa loo magacaabay wasiirka wasaaradda gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka hadda soo kuma dhihin marka mustaf dhuxulow waa laga qaleeyey nimayo bay ugu furan tahay anay bay ugu furan tahay mustaf dhuxulow waa laga qaleeyey lama shaacinin laakiin anaa hadda kuu sheegayo wasiirka gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka hadda waxaa loo magacaabay sambaloolshe oo laga qaaday sirdoonka mahad salaadna waxaa loo dhiibay sirdoonka waaye immigrationka in la geeyo waa la isku dagaalay mustaf dhuxulow in laga qaado ma arkayse halka loo yaqaano laanta socdaalka iyo jinsiyadaha ama immigrationka ninkii mursada in laga qaadaa la rabay waa la isku dagaalay oo sambaloolshe loo dhiibo taasi dagaalaa ka dhacay annaga waxa weeye waxaan ugu jirnaa meeshaan inaan xaqiiqada soo gudbino markii la isku dagaalay oo la yidhi sambaloolshe xaggee loo dhiibaa laanta socdaalka ninka mursada looga qaadayaa dagaalkaasi kadib waxaa natiijada lagu soo gebagabeeyey oo la yidhi musiibooyinka iyo maaraynta iyo gargaarka wasaaraddaasi ha loo dhiibo sambaloolshe taasaa lagu dhameeyey hadda waa loo magacaabay jaamacadda s m c mar walba wixii markaasi taagan si degdega ayay ma arkaysa idinla wadaagaysaa waaya si kastoy ahaataba dhegaystayaashii daawadayaasha qiimaha iyo qaayaal ahaw shirkaasi wixii kusoo kordhay macnihii waan idiin sheegnay mahad salaadna waa loo magacaabay marka waa idin salaamaynaa maasaaba nagu furan iyo ma arkayse fayris bas wixii intaa kusoo kordha waa isla joognaa muuqaalkan muuqaalka xiga ka hor
fardowsa ayaan idin leenahay fardowsa ayaan idin leenahay insha allah wixii soo kordha waa isla joognaa